Somaliland waa dal curdin ah oo aan ka helin aqoonsi caalami ah dawladaha caalamka. Halkanina waa wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Wajaale, waxaana ka socda mashruuca weyn ee ay ka wado DB Wall wadada u dhaxaysa Berbera ilaa Wajaale. Mashruucan ayaa ka mid ahaa mashruucii ay kala saxeexdeen dawladda Jamhuuriyadda Somaliland iyo welibana shirkadda DB Wall 2017 dhismaha dekedda weyn ee Berbera iyo wadada Berbera Corridor ee Wajaale to Berbera. haddaba wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Wajaale ayaa waxa ka socda dhismaha wadada Berbera Corridor. wadadan ayaa waxa ka mid ah dhismayaal laga fulinayo saddexda biriish ee ugu waaweyn ee gobolkan Gabiley, waa Hulluuq, Arabsiyo iyo weliba Agabsaha, oo ay dhibaato weyn ku qabeen dadka wadadani isticmaala ama gaadiidka isticmaala wadadan oo aad u tiro badan. dadka deegaankani kumay fikireen marnaba in ay dhismahani fulo sanadahan inay arkaan dhismayaal ka socda biriishyada Hulluuq, Arabsiyo iyo Agabsaha, balse maanta way rumowday. waxaynu eegaynaa dhismayaashan ka socda oo ay gacanta ku hayso shirkadda DB Wall. guuleysadaale waxaad ka warantaa inka maanta waatan biriishyo saddex biriish ay ka socdaan deegaanka. waxtar intee leeg buu keenay waxtar aad iyo aad u balaaran ayay noo keenaysaa waqtiyada roobabka kale. dadku halkan habeen iyo 24 saacadood halka aad baa loo dul taagnaa, laakiin se imika hasaan ku wadno aad waxaan u malayn aad looga raysan doono. mashruuc inta leeg baa kiid gali mar ma islahayd Somaliland mayna marna ismanaan lahayn taladana naguma jirin hore waqtiyadan ay ka hirgasho. waxa anigoo ah Xuseen Saciid Maxamed, waxa biriishkan halkan loo si fiican loogu sameeyay horta hawsha si fiican loo qabteen. inkastoo ay ka dhigayaan de biriish weligii jiraya ya labada waxa kalena biriishkood meel macaan u jeegan meel fiican ay marnayaan. ragana waa rag ilaahay noo soo diray ya rag wax qabad la dee imana biriishka si fiican bay hawsha u wadaan. magaalada waxba nooga qabanay xataa wadooyin lagu sameeyaan dee la dhaado. marka dadka la soo dhaweystaa ee la iska fogeeyo haddaynu iska fogeeyo dee inagu ma eegno daran tahay ya inagu ma ku waxla. laakiin iyagu waxay noogu yimaadeen inay wax weyn noo qabtaan ay noogu yimaadeen. marka dee labadii kale leeyahay dee waxaan leenahay ilaahay khayr nooga dhigo. wuxuu ku hayn jiray dee baabuurta ayaa ku dhibaahan jirto waqti dheer ku qaadan jirtay markuu soo rugmado meel dheer ku soo rugmadaayo wuxuu ka soo rugmadaayo lama qadowga ay ku soo rugmadaayo. marka haddii la yidhaahdo waxa ay ku qaadan jirtay waqti dheer oo dee dad nin badan dad buu qaaday xataa oo dee iyo baabuur buu qaaday. marka imika maanta dee ilaahay farxadda noo soo dhaweeyey. halkan aynu ku sugannahay haddana waa Agamsaha, isla markaasina uu ka socdo biriish weyn oo loo sameynayo dooxan Agamsaha oo dhibaato weyn ku hayay dadka deegaankan iyo waliba gaadiidka kala duwan ee halkan mara. waa dooxan Agamsaha dabadeed intaan biriishkan daan la xidhinaan hawlgalkiisa la gelin gawaarida dhibaato badan ayuu ku hayay. dhibaatada ku hayayna maanta horta taasoo la sameynayaa biriishkii insha Allahna khayr bay noqoni. gawaariduna aad ay uga raysan doonaan. waan gartay waxtarka uu ku soo kordhin doono maxay kula tahay? waxtarka uu ku soo kordhin doono doorta wax gaadhido xidhmi doona ma jiri doono. gawaariduna si nabdoon ayay u mari doonaan jidka hadii la hayra oo wax dhibaato oo u geysanayaan inaanay yeelanin baan mulanay. waxa weeyaan dadka waxa ka haysan jiray dooxan dhibaatooyin badan, gaadiid badan oo uu qaaday uu dad ku dhintay way jireen. maanta hay'adda ka shaqaysay ee biriishka ka dhistay aad bay u mudan tahay, xukuumaduna way ku mahadsan tahay. sidaa awgeed alxamdulillaah baanu leenahay. marka in 82 wixii ka dambeeyay dooxa dhexdiisa la mari jiray, maantana wataa biriishka ilaahay u soo diray uu keenay ya hay'adda dhisasa iyo xukuumadaba waanu ugu mahadnaqanaa. magaalada Cadnaan Saciid Nuur الله يمك هذا والله إن شاء الله يمك والله دمينيا يمك ماشان ده اللي بتوي فربض ما نقول كل مشري يا يمك أنا يربا نقاري. haddaba dooxan ayaa ka mid ah mashaariicda ka socda gobolka Gabiley. mashruucan DB Wall ay ka wado gudaha Somaliland ayaa ka mid ah mashaariicdii ugu waaweynaa ee ka fula dalkan Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo intii ay jirtay, isla markaasina ah mashruuca ugu weyn ee aan dawlad aqoonsi aan lahayn la siiyo kuna yimiday heshiiskii ay la gashay dawladda Somaliland shirkadaasi DB Wall waqtigii Axmed Siiraanyo waa Cabsalaan Maxamed Bade
bulsha TV gabiley.